السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii aan dhageysto hadallada siyaasiyiinteena iyo madaxdeena iyo madaxda caalamka iyo dadka ay qusayaan arrimaha Soomaaliya sida Afrikaanka ciidamada waddanka ka joogaan iyo dadka loogu yeeray beesha caalamka iyo dadka adiga Soomaali faraha kula jiro dhan markii aan dhageysto hadalkooda iyo waayahan xataa saxaafadda markii aad dhageysto waxa ka soo baxaysa Soomaaliya oo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash noqota inay naga xigto in waxa loogu yeeray qawaarita laga guuleysto aba soo qaad maanta in nimankaasi si mucjisale hal maalin la waayay oo la yiri maanta wadankii hal qawaarij Soomaali toos ma malaynaysaa in Soomaaliya nabad noqon doon in barwaaqo la gaari doono in la heshiis doono saashaas ayaan isweydiinaynaa maxaa yeelay waxaana la ku calcalshay haddii qawaarita la baxsho wax kasta waa laakiin inta aan anigu noolaay waxa aan maqlay dad badan oo la leeyahay haddii la baxsho wadanku uu hagaagayo aan ka soo qaadno hogaamiye kooxeedyadii waxa la yiri maalinta hogaamiye kooxeedyada wadanka laga nadiifiyay waxa loo maleynayay in wadanka Israaciil laakiin wax isbedel ma leh waxaana la ku yiri wadankan dhibaatadiisa dhan waa Siyaad Barre iyo maamulkiisa haddii la baxsho wax kasta way hagaagayaan Siyaad Barre la isugu tag la bixi kumanaan qof ku dhimatay way ka sii dartay Soomaaliya Siyaad Barre naftiisu markii uu imaanayay waxa uu ka duulay haddii dawladda ka horeysay la dumiyo in wax kasta okay noqon doonaan waxaan hubaa in ay maanta nool yihiin dad Soomaali ah oo maqlay haddii Talyaaniga la bixiyo wax kasta way hagaagayaan Talyaaniga la bixi haddaba maxaa dhacay 60 sano kadib markii Talyaaniga la baxshay waxa dhacday in aan weli isticmaalayno dhismooyinkii iyo wadooyinkii Talyaanigu dhisay Talyaaniga ka hor waxaan hubaa dad ayaa isu tagay waxa ay dhaheen haddii ajuuraanka la bixiyo maamulka ajuuraanka wadankan uu hagaagaya okay ayuu noqonaya dad ayaa isu tagay ajuuraanka ayay bixi waxaan qiyaasayaa sidoo kale in ajuuraanka ka hor saldanadii jiray oo dhan mid kasta la yiri haddii la bixiyo wadanku uu hagaagaya marka aan saas ku leeyahay aniga waxa shaki iga jira in dhibaatada meesha ka jirta aysan ahayn maamul aanita aan garanno haddii dad la bixiyo oo wanaag ku imaanayo Siyaad Barre bixintiisii ayaa wanaag ku imaanaa waan ogahay in bixisyada qaar ay gar yihiin sida Itoobiyaanka oo kale markii la bixinayay waxa la yiraahdaa la bixiyo wax kasta okay ay noqonayaan bixinta qaar waa daruuri waan ogahay laakiin waxaan u moodaa dadkeena in aysan waxba ka baran wixii maamul la bixiyo oo maanta dawladdu waxay noo sheegaysaa in haddii nimankaas laga guuleysto wax kasta ay okay noqonayaan laakiin aniga aqligay waxa uu ii sheegayaa in wax okay noqon doono aysan jirin ilaa la soo helo meesha qaladku ka jiro waa maanta haddii nimankaas la bixiyo dad kale ayaa la dhihi doonaa haddana alla bixi amisom ahaataya dawladda hadda jirta naftirkeeda ahaataya qofka ay ahaataba waxaana loo keeni doonaa mashruuc ah haddii la bixiyo dadkan wax kasta waa okay ayay noqonayaan haddaba xagee dhibaatada ka jirta aniga waxaa ila tahay waxa aan u baahannahay inaan horta dib u laabano oo aan isweydiino horta yaa isu kaana keena waan ognahay wadankan dad badan oo kala duwan ayaa degi jira waxaana ognahay inkastoo lagu yiri Soomaali ayaa la yiraahdo hal oday oo Soomaali la yiraahdo dhalay lagu yiri dadkan in oday isku dhala oo soo jirin dadka intooda badan inaysan waxba isu ahayn isku odana aysan ahayn isku dhigna aysan ahayn haddaba waa inaan soo ogaanaa horta maxaa isku kaana keena maxaa isku kaana xiray yaa isku kaana keena ma annaga ayaa inta isu nimid ayaa meel inta ku shinaan aan dhahnay warnooyada Soomaali ayaana la yiraahdo wada Soomaaliya la yiraahdo ayaana deganahay waxaas ayaana naga dhaxeeya aan ku heshiino aan hore u socono ma ana leeyahay xaqiiqda haddii abaarto waa helaysaa dadkanu waa dad kala duwan dad ayaa isu keenay dad ayaa magac u baxshay Soomaali u baxshay dhulkana dad ayaa Soomaali u baxshay dad ayaa isu keenay dad ayaa baarlamaano u dhisay oo madax u dhisay dad ayaa dhismooyinka lagu shaqeeyo iyo u sameeyay wadooyinka la maro haddaba aniga waxa ay la tahay inta aan ka ogaanayno waxa isku kaana xira ee aan dad wada socdo ku noqon karno inta aan ka soo helayno maalin kasta kuwa ayaa la bixi doonaa kuwa yimaadna waxay isku leeyahay inta kale inay gumeystaan qolo kasta oo maamulka qabsata ma isku dayayso inay dadkii hore u wada wado waxay isku dayaysaa inay ayaduna si fiican u noolaato inta kalena ay cagta hoosteeda geliso kuwa kalena ma dhahayaan ayagana war waxaan u kaadi war waxaan waa qaldan yihiin aan toosino oo aan hore u wada soconno ma dhahayaan waxa ay leeyihiin waxaan dhan aan dudumin kii barintii maada asagana halkii ayuu kasii bilaabaya wuxuu bilaabaya inuu inta kale gumaysto asagana noolaado ilaa qiyaamaha marka ma waxaa lagu jirayaa reer hebel aan bixino koox hebel aan bixino maxaa loo heli lahayaa hal hogaamiye ama dhowr hogaamiye oo ka fikir sarreeya waxyaabahan ku dhisan qabiilka iyo ina adeerowga maxaa loo heli lahayaa hal nin oo yiraahdo dadkan waa isku wada mid waan isku wadayaa cadaalad ayaan u samaynayaa dadkana wixii ka qayb gashay waa maxay sababta ay markasta ay u jirto firaaq ama meel bannaan ayaa markasta jirta dawladda iyo shacabka maxaa yeelay dawladdu tusaale ahaan dawladdu marka ay shaqaale qoranayso ama tusaale ahaan amba ka soo qaadno baarlamaanka dadka ku jira oo kale ama wasiirada ilaa imaa ciidamada kan ugu hooseeya dhinac ayay u socdaan dadkii kalena dhinac ayay u socdaan waxaan isweydiinayaa dadku marka ay jagada qabtaan ayay xumaadaan base marka hore ayaaba jagadaas waxaa loo raadsaa qof xun oo kaliya tusaale ahaan waxaa laga yaabaa 20kan qoys oo dariska way istaqaanaa cali iyo cabdi iyo maxamed iyo axmed kulligood waa isaqaaneen dadkanu waa aan dhahno waa dad caadi ah ilmahooduna aan dhahno waa iyaguna waa dad caadi ah oo dadkooda
kamid ah dadka noocaas aad taqaanid ee aad aragtid maxaadan uga dhex arkayn dowladda ama wasiirada ama askar mase marka ay nidaamka mid noqdaan ay waxay noqdaan mid isbaara dhigta mid qayila mid dadka dhaca mid dhulka booba mid wadanka dhan gata mid badda gata miyay noqdaan oo marka ay meesha tagaan miyay sidaas noqdaan mase marka hore ayaaba waxaa la soo xulaa dadka aan beerka lahayn waxna xeerin su'aalahaas ayaa doonaya in laga jawaabo